السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد كوبعية سوفتوير علاوات قبرتين كورسوين كلا دوان كورس كيني كويك بوك 2016 ayaa noo socda casharkeeni shaylaatanaad qaybta practicalka ayuu noo maraya casharkan ku saabsan yahay undeposited fund activity. Undeposited fund waa tan dhowr jeer baan soo sharaxnay waxay tahay lacagta marka aanu wax iibino ama lacag deena noo timaado akoonka lagu ururiyo baa loo yaqaan undeposited fund intaan loo gudbin bankiga ama akoon meel kale lagu kaydinayo intaan loo gudbin lacagta businesska iska dhex taala akoonka lagu ururiyo loo yaqaana undeposited fund. marka lacagta sidaan ugu wareejin lahaa ama bankiga u dhigi lahaa ama akoon gaara ugu transfer ama cash gaara u transfer gareyn lahaa ayaan ku baranay casharkeenan. marka kusoo dhawaada qaybta practicalka. markaan kusoo dhawaanay qaybta practicalka undeposited fund aan eegna qiimaha noogu jira horta businesskeena inta wataan dowlado badan kusoo shaqeynaa undeposited fund halkan iga eega undeposited fund waxay ku jira 521. marka lacagta waa inaan cash u wareejiyaa oo cash caadi ugu wareejiyaa ama inaan ku wareejiyo bankiga oo akoonkii bankiga iga furnaa aan dhigo. marka labadaba waa ni tusi doonaa isla loo wareejiyo. marka sida bankiga loo dhigo horta lacagta aanu ku horeyno waxaad tagaysaa banki waxaad ka tagaysaa make deposit wuu fudud yahay kani. marka lacagihii fara badnaa meelihii kala fara badnaa iga kala soo galay buu tusayaa. marka ka soo qaad labada lacagood ugu horeeya $50 iyo $44 raba inaan dhigo bankiga labadaba tigtaan saaraya okay baan dhahayaa save and close baan dhahayaa. marka saas uu hadda lacagteeni bankiga ku dhigay aan reportkeeni eego way yaraanayaan lacagtii undeposited fundki oo hadda labadii lacagood waxaan dhigay bankiga undeposited fund iyaga waka markii hore waxay 521 hadana 427 bay maraysaa. marka 427 kaasaan u wareejinayaa cash ka baan ka dhigay cash. marka qaabkii ugu wareejin lahaa cash baan tusayaa wax tagaysaa banki transfer fund ba tagaysaa aska weynaysiisto halkaas date soo qabanaya transfer from halkaas soo furaysaa waxaan ku qoranayaa undeposited fund halkaas ka qoran undeposited fund marka ay soo baxay halkaana waxaan ku qorayaa lacagtii aan ku akoonka aan ku wareejin lahaa. marka cash baan ku wareejinaa akoonka cash lacagta gebigeeda baa lacagtii lagu wareejin lahaana halkaas aad ku qoraysaa 427 bay noo mareysay. marka lacagta gebigeeda baan ku wareejinayaa save and close baan dhahayaa. marka hadda gebigeeda lacagtii waxaan ka dhigay 0 undeposited fundki waan wareejiyay qaana bankiga dhigay oo cash baa qaar ugu bedelay qaana bankiga dhigay. marka undeposited fund ma aragta hadda oo gebigeedii waan wareejiyay. marka casharkeeni intaas uu kusoo gabagabooday. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.